بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحسن محمد عمر وأي بلشوين تسمعوا لكنا مدير أنا يوجرنا يان حسن جوري ما أنت موضوع عن إن أنك هلا ربما مركو جوه الرئيس وحنو مهدلين يا بحدة دعوة FM أديات بعد ما هالسنتين ما أنت هل كانوا حنو ماضي إن أن معناها كهلا موضوع جابن أنا جو وقت جانا كوبيو موضوع ما أنت كهلا يعني وحكوا الدنيا هي نبت جليدة إيو فائدة ده أي أولاد هاي بلشدة الصوماليات run ahaantii Mandera County waa magaalo ay degaan dad aad iyo aad isu jecel dad walaalo ah dad wax walba isla qaybsado dad nabadgelyada jecel dad aad iyo aad isu fahansan isna hood og oo macnaha maaragtay aad iyo aad qoto dheer isu leh waa arrin aad iyo aad macnaha maaragtay in Allah subhanahu wa ta'ala loogu shukriyo mudan ayadoo isaas tahay waxaa jiro shaqaaqaad dhibaatooyin yar yar oo mararka qaar dhaco oo ka dhaca Mandera County qof walbo anaga naga mid ahna waxa ka saaran waajib in uu arintaas aad ka hadlo run ahaantii dhinaca aan iraahdo Mandera County qaasatan dhulkan koro mararka qaar waxa ka dhaca shaqaaqooyin iyo dhibaatooyin in macnaha maaragtay dad lagu dilo in dad lagu dhibaateeyo horta waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala aan dhamaanteen ka wada cabsana Allah subhanahu wa ta'ala ayaana abuurtay awoodiisa iyo amarkiisa ayaana dunidan ku joognaa waxaa bulshadeena inay fahanto la rabaa muhiimadda iyo walaalnimada waxay tahay iyo muhiimadda nabadgelyada ay bulshadeena Soomaaliyeed u leedahay war nabadgelyo la'aanteed lama socon karo tan labaad dhamaanteen waxaanu nahay dad walaalo ah waxaanu nahay dad isjecel waxaanu nahay dad ishood og mararka qaar it is very unfortunate waxyaabaha mararka qaar dhaco waa arrin aad iyo aad in loogu macnaha loogu qiiroodo macnaha maaragtay mudan hasi ahaatee haday dhacdo hadala xal waara ayaa laga gaaraa alxamdulillah waxaanu leenahay mas'uuliyiin kala gidisan oo arrimahaas inta badan ku howlan waan ugu mahadcelinayaa mas'uuliyiinteena waxaan rabaa un baaqan u dirayaa marka bulshadeena Soomaaliyeed ee ku dhaqneyd Mandera County war walaalayaal horta waxaan ogaanaa dhamaanteen in Allah subhanahu wa ta'ala aan ka cabsano waxa kale oo loo baahan yahay inaan ogaano qofka walaalka oo muslimka ah oo aas dilayso oo dhiigiisa daadanayo dhibaatada aad adiga kala kulmayso cuqubada iyo masiibada aad adiga kala kulmayso war qofkan walaalka oo muslimka ah hadaas disho waxaad leedahay caqabado fara badan oo Allah subhanahu wa ta'ala aad kala kulmayso oo ay kamid tahay war qofka walaalka maxaad ku dishay hadii ay tahay waxaan ku dilay arrimo siyaasadeed Allah subhanahu wa ta'ala caqabado ayuu ku marinayaa waxaan rabaa marka oo macnaha maaragtay ujeedkaygu uu yahay arrimaha nabadgelyada ma aha oo kaliya inaan ka hadalno xilliga ay qalaafaadka iyo dhibaatooyinka ay dhacaan waa xilli walbo in aan ka hadalno waajib ayaa naga saaran waxaan baaq u dirayaa bulshadeeda ku dhaqan Mandera County qaasatan meelaha ay inta badan dhibaatooyinka ama shaqaaqaadka ay ka dhacaan war dad walaalo ah oo muslimiin ah oo isjecel ayaanu nahay meel lagu kala tagayana malahan maxaa yeelay dadkan waxay isu yihiin sodog iyo seedi iyo xigaal iyo xigta iyo abti iyo adeer iyo dumaasho ayaa liisu yahay run ahaantii ummad saas ah there is no way wada ay isku dagaalaan malaha marka waxaan ka codsanayaa insha Allah ta'ala bulshadeeda Soomaaliyeed in ay arrimaha ceenkaas camal aad ka waantowdaan haddii la arko cid wado dhibaatooyinkaas iyo dhaqdhaqaaqyada ceenkaas camal ah dhinac la iskala maro oo qofka dhibkaas wada aad noqdo qof kaligiisa oo shakhsi ah qofka markuu shakhsi noqdo oo aad garab waayana gacanta ayaad soo galaya laakiin hadda garab lagu siiyo gacanta soo gali maayo waxa kale oo rabaa inaan baaq u diro arrimaha biiska hay'adaha u xil saaran waxa igu codsi ah idinkuna in aad arrintan aadan ka hadlin oo kaliya marka ay dhibaatooyin jiraan ama ay dhibaatooyin bulshadeena ay soo food saaraan waa inaad baxdaan oo aas tagtaan locationaha wardiyalka kala gidisan magaalooyinka waaweyn oo aad ka bixisaan awareness aas tagtaan meelaha miiga ah oo aad awareness ka bixisaan waa inaad bulshaweynta isu keentaan waa inaad isku xirxir fara badan aad sameysaan waa in bulshada macnaha maaragtay waxa ku jiro dad jaahiliin ah waxa ku jiro dad maskaxdooda macnaha maaragtay capacity-goodu aad u hooseeyo bulshada waxaa loo baahan yahay arrimahan biiska inaad mar walba gaarsiisaan oo aad u gaarsiisaan qaab awareness ah
bulshada markaas waxay noqonaysaa mid issii dhex gasha midkooda jaahilka ah oo dilkan iyo dhibaatadan in guul lagu gaaraya malaynayana waa soo waantoobaya waxaa kale oo aan rabaa inaan baaq u diro His Excellency Maxamed Aadan Khaliif, His Excellency Ali Ibrahim Roba waa senator maxay ahayday iyo madaxdeena kala gidisan MPyaalka MCA-yada iyo madaxdeena dhar noo waaweyn ilaahay yaa weyne waxaan rabaa in mar walba oo ay wax dhacaan ayaga ayaa macnaha maaragtay imaado ayaga ayaa groundka joogo arrintaas waxaan leeyahay madaxdeena ha ka raali ahaadaan waayo waxaa wanaagsan markaad qashaashaad iyo dhibaato ay imaado in waxaa jira odayaal kanyeeji ah oo groundka joogo oo maxay ahayd arrimaha wax weyn ka og xal waara gaari karo arrimaha ayuu dhameyn karo odayaalkaas inaad ku dhaaftaan diyaaradan la soo kireynaayo oo inta soo milyan laga soo bixinayo qarashaadkan inta soo milyan oo mar walba aad bixinaysaan waxa ku filan odayaalka deegaanka ee dhalinyarada macnaha maaragtay groundka joogto idinkoo 1 milyan ama 1 milyan iyo bar macnaha maaragtay u soo dhiibay oo macnaha maaragtay arrintaas 1 sano 2 sano ay ka shaqeeyaan si ay bulshada ay u gaarsiiyaan awareness fiican oo ku aadan arrimaha nabadgelyada insha Allah ta'ala dad isjecel ayaanu nahay jacaylkeenana wiligiis alla wuu waari doonaa wuuna sii socon doonaa insha Allah ta'ala aniguna waxaan idin leeyahay insha Allah ta'ala aan noqono kuwa nabadgelyada iyo xasiloonida mar walba ku dadaalo waadna mahadsantiin walaalayaal